gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salabaan Ramaax ayaa maanta tababar uga furay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee Ceergabo 16 xubnood oo dhalinyaro ah kuwaas oo muddo 6 bilood ay tababari doonto hay'adda IOM waxaana munaasabadii furitaanka tababarkaasi ka soo qayb galay madaxda hay'adda IOM iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaana ugu horreyn munaasabadii furitaanka tababarkaasi ka hadlay Liibaan Maxamuud Ciise oo ku hadlayay afka hay'adda IOM oo faahfaahin ka bixiyay hadafka iyo ujeedada tababarkaasi looga golay ujeedada ka dambaysa saddex shay weeyay inaanu tahriibka joojino anagu mandate ka eegana in maaragtay shaqo abuur aan u sameeyno dhalinyarta iyo in maaragtay iyaga u dhowday xirfad bartaan Ceergabo maadaama jaamacadda Ceergabo laga bixin maalmahan basad ogeedeen ardayda waxaan dadkii reer Ceergabo jaamacadaha kale ka yimid Hargeysa iyo maaragtay Burco iyo Boorama ka yimid ayaanu tagtansiinay runtii ilaa shalay interview aan qaadanay 16 ku guuleystana waa ku halka waxaan rabnaa inay maaragtay noqdaan 16kiina qof inay noqotaan dad maaragtay role model u ah dhalinyartii kale reer Ceergabo gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salabaan Ramaax oo isaguna munaasabadii furitaanka tababarkaasi ka hadlay ayaa hay'adda IOM uga mahad celiyay barnaamijkan ay gobolka soo gaarsiiyeen sidoo gudoomiyuhuna ka qaybgalayaasha ku booriyay in muddada tababarkan uu socdo ay si mug looga faa'iideystaan waxaan marka hore runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa IOM oo dadaal badan sameysay kadib codsigii aan ugu qornay dadka reer Ceergabo gaar ahaan xafiisyada gobolka ama degmo inay u baahan yihiin dad dhalinyaro ah oo magaalada u dhashay in loo tababaro dhalinyaro wada reer Ceergabo ah inay mashruucan ka faa'iideysato gobol ahaana aan uga faa'iideysano dawlad ahaana looga faa'iideysto kuna waxaan rajaynayaa inay idin tababarka la idin siinayo iyo ballanqaadka qaadeen iyo si mashruucan uu noqdo mid inoo wadanka oo dhan runtii wax uu tareeyay mid wax inoo tareeyay inay idin noqotaan qaar ka faa'iideysto